xafiiska horumarinta xoolo-dhaqatada deegaanka Soomaalida iyo mashruuca LLRB oo iskaashanaya ayaa Xaaji Maxamed oo duleedka magaalada Shabeelle ku dhaqa shinida gaarsiiyay qalab casri ah oo lagu dhaqo shinida kharashahana ku fadhiya ku dhawaad 80,000 oo bir. Qalabkan ayaa isugu jira gaagurta casriga ah, qalabka malabka lagu miiro iyo huga loogu talagalay dhaqashada shinida. Abibakar Cali Liibaan, madax kooxeedka horumarinta shinida iyo kalluunka ee xafiiska horumarinta xoolo-dhaqatada, ayaa noo sheegay in ujeedku yahay sidii loo horumarin lahaa wax soo saarka shinida. halkan ujeedada u nimidna waxa weeyaan iskaashatadan allamagan oo ah iskaashato ku hawlan soo saarka shinida oo in muddo ah ku shaqeynaysa nidaam qadiimi ah ayaa kadib markii aan daraasaad badan sameynay anagoo kaashanayna mashruuca LLRB ayaa waxaan sameynay qalab baa la soo gaday, qalab ah nooca casriga ah ee dhaqashada shinida maadaama nooca qadiimigii uu dhib badnaa oo bulshada ku rafaadayeen sameyntiisa iyo sida looga guray malabka. Waxaan ku wareejinaynaa qalab dhan 13 item oo u dhiganta lacag 80,000 oo bir ah. qalabkaas ayaan maanta ku wareejinaa iskaashatada allamagan maadaama ay tahay iskaashato dadaal dheer sameysay oo kaligeed macnaha shaqeynaysa oo si fiican u shaqeynaysa. ujeedadan ka rabnaana waxa weeyaan in ay noloshoodu isbedel dhab ah ka keenaan oo ay nidaamka hore qadiimiga u dhaqan jireen nidaam casri ah u dhaqdaan, sidoo kale uu dhammaan agagaarka deegaankan oo dhan u noqdo macnaha model qaybta horumarinta shinida ah. qalabku aan soo gaarsiinay waxay kala yihiin gaagurta casriga ah oo ah 14 xabo, bahalkii malabka lagu miirayay, dhammaan agabyada kale ee dharka loo xidho, dharkii la xidhanayay, qalabka waag hore sidan macnaha isagoo qaawan ama waxaas ku shaqeyn jiray. hadda laakiinse waxaan u keenay dhar shinida ka difaacaya inuu qaniinto waxyaabo dhibaato u geysato iyadana uu dhibaato gaarsiiyo. sababtoo ah waagii hore waxay isticmaali jireen dadkani qori bay iyo dabka ku qiijinayeen. hadda laakiinse waxaan u keenay smoker bahal la yiraahdo oo shinida dhibaato yeelin. waag hore laakiinse caqabadaha la kulmiyo waxa kamid ah shinida markuu malabka guranayo inay dhamacda qayb kamid ku dhacdo, shinida dhimato, shinida waxyeelo gaarto. Xaaji Maxamed Cabdillaahi waxa uu noo sheegay in qalabkani uu wax weyn ka tari doono wax soo saarkiisa shinida. shinida waxaan ka soo qaaday magaalada Jigjiga, xaafadii baa ciriiri ku noqotay, ayaan meesha sahan ugu imid. markii dambe meeshii waan shinidii xagga taale meeshan ayaan sii hagaajiyay. jingadii wax ma jirin, shabag baan soo iibiyay markii hore iyo ood ama maalinka habeen kasta saasaan yaan isu wareejinaynay. marka ala kulli xaal jingadihii baan yaan maanta isgaarsiiyay, baalkii waan ka nabad galay. tacabkii waxaan galay hadda maanta inaan barkad qodo, barkadii sibdhiyo, biyaha halka ugu shubo. bacaan markii hore ku shubayay, bacaasna waxaan dhigay weelal baan dhulkan ugu wada taagay oo biyaha ugu shubayay. maanta ilaahay maadii wasqaas waxay noqotay waa ma sha Allah weeyaa. dhaartii markay malab ay yeelato 100,000 wax laga mar qod 100,000 in laga guro. haddaba aynteeda baasho dhamaatay inta alaabta gelisay inta waxaan ku leeyahay shaqo inta shaqaale aan ku bixiyay inta waad yaabaysaa. baasho horta waa faa'iido badan bay leedahay. qalabkan wuxuu iga caawinayaa shinida horta waad gashanaysaa qalabkii. ana toshay in yaro koofiyada oo inta aan gashay kolba idil gaadho dhakhtarka la dhigay wargi halkan joog marba idil gaadhay baalkaasan samaystay inta kurka haddana inta kale xukun yeelayso waa inta kurka baasho wax ka dishay. marka bahalkii wakaasoo waxaa la keenay qalab casri ah la keenay, kabihii koofiyadii wixii surwaalka isku joog sidoo kale ah ayaa la ii keenay. qalab waxa ugu jira qalab fiican. markii waxa lagu shubayay dustiba biyo lagu shubayay, biyaha markay karaan baa tu kale lagu gurayay malabka. markay dhalaasho yaa baasha shaandhada weyn yaa weel hoostiga saasa lagu shubayay, saasay ahayd. marka waxa weeye qalabkii hadda waxa weeye waa qalab casri ah, waad ku guraysaa kilomeeda tii kale in ka soo burinayso iyada loo dhigaa. marka waxa weeye adeer ilaahay maadii waa weeye kii lagu miirayay gaaguri casriga ah alaab badan baa lisay.